dadka ku nool Soomaaliland markii hore ganacsiyada noocan oo kala aad looma soo dhaweyn jirin amba dadku maali waxay u yaqaaneen alaab iska yar oo maynaraan wax badan ku fadhiin qiimo bal maanta ka waran idinka suuqa ku jirta ganacsigan oo kale dadku waxay yiraahdaan barbaraadna un baa loo qaataa iyo meel la qurqurxinayo idinka suuqa ganacsiga oo kale ka waran qiimahan la qiimo ma aha furniture-kii oo uu ka jaban yahay hadii ma aragtay qofku isiraahdo maanta meel aad u qurxi wax laga yaabaa waxyaalo yar oo decoration oo simple inuu iska qaato lacag ahaan inay ma aragtay ay aad uga jaban aan fikradaadi fikrad ma aragtay aanay fikrad khasaartay amba aad ku feel garooday aanay noqonin marka si ay fikradaadi fikrad u shaqeyso oo ma aragtay ay like meel fog aad uga gaadhid oo mustaqbal weyn ka gaadhid dana meel hoose ka soo bilowda marka qofka dhalinyarta wax ma jirto maanta bilaabaya bari baan cirka gaaraya ma jirto marka qofka dhalinyarta waa in meel hoose ka soo bilaabaa uu samraa bari ka maalin businesskii waad ku noolaanaysaa wallahi horta fikradani waa fikrad cusub oo aan aad loo isticmaali jirin markii hore aad wax loo muhiimka loo saari jiroon furniture-ka waaweyn ku soo dhawaada barnaamijka ganacsada ee waa barnaamij toddobaadkii baad hal mar kala socon doontaan Carrada Media barnaamijka waxaan ugu talagalnay inaan ku eegno ganacsiyada kala duwan iyo hal-abuurada kala duwan ee ay sameeyaan dhalinyarada ee hal-abuuray ganacsiyada cusub ama ku cusub dalkeena maanta waxaan ku sugaayay meeshan aad ka quruxda badan leh oo lagu magacaabo American Home Decoration dhinacayga waxa taagan Maxamed Aadan oo kamid ah dhalinyarada Soomaaliland isla markaana aasaasay ganacsigan unique ama gaarka ah ku cusub wadanka Maxamed baan soo dhaweynaya Maxamed soo dhaw waan dhawahay Naciime iyo Carrada Media baad dumaaseen maanta waxaan joognaa xaruntii American Home Decoration oo aad u qurux badan isla markaana aan aad iyo aad uga helay ama la dhacay Maxamedow decoration kan aad ka u kala duwan guud ahaan wadankeena ku cusub dadka ku nool Soomaaliland markii hore ganacsiyada noocan oo kala aad looma soo dhaweyn jirin amba dadku maali waxay u yaqaaneen alaab iska yar oo maynaraan wax badan ku fadhiin qiimo bal maanta ka waran idinka suuqa ku jiray wallahi horta fikradani waa fikrad cusub oo aan aad loo isticmaali jirin markii hore aad wax loo muhiimka loo saari jiroon furniture-ka waaweyn haday noqoto fadhiyada roogaga gogasha waxyaalahaas decoration-kani wuxuu noqday qayb muhiim ah marka loo eego guryaha xafiisyada nolosheena oo dhan marka qiimahan la qiimo ma aha furniture-kii oo uu ka jaban yahay hadii ma aragtay qofku isiraahdo maanta meel aad u qurxi wax laga yaabaa waxyaalo yar oo decoration oo simple inuu iska qaato lacag ahaan inay ma aragtay ay aad uga jaban yihiin marka markasta marka waxaan sameeynay waxaan ka fikirinay jeebkayga iyo jeebka macaamiisha aan wax ka iibin doono mar haddii dadkeeni aanay dad ma aragtay dhaqaale fara badan oo aanay sawsi buuran haysan dhalinyarahan dhalinyarta waxay jeceshahay ganacsi soconaya markiiba lacag ay ka faa'iidaan amba markiiba suuqa ka soconaya ganacsigan oo kale dadku waxay yiraahdaan barbaraadna un baa loo qaataa iyo meel la qurqurxinayo idinka suuqa ganacsiga oo kale ka waran wallahi horta ganacsi waska garanaysaa ganacsi ma fududa oo hadda maanta ku dhaahdo ganacsigu waa wax fudud waa been baan ku sheegaya qofka dhalinyartiina shaqo ka soo bilaabaa kadib uu ganacsi amba wax kale uu hiigsada ayuu sameeyaa marka mar haddaad qofka horta fikradda kugu jirta inaad hirgelisid aad muhiim u tahay aan fikradaadi fikrad ma aragtay aanay fikrad khasaartay amba aad ku feel garooday aanay noqonin marka si ay fikradaadi fikrad u shaqeyso oo ma aragtay ay like meel fog aad uga gaadhid oo mustaqbal weyn ka gaadhid dana meel hoose ka soo bilowda marka qofka dhalinyarta wax ma jirto maanta bilaabaya bari baan cirka gaaraya ma jirto marka qofka dhalinyarta waa in meel hoose ka soo bilaabaa uu samraa bari ka maalin businesskii waad ku noolaanaysaa faa'iido fiican iyo wax badan baad ka samaynaysaa dadku ma kula fahmaya maanta markaad alaabtan iibinayso decoration-kan wuxuu aaminsanaa dadkeena bari waa markay alaab qaataan fadhi aroosyadoo kale ama xafiisyadoo kale alaabta waaweyn unbaa xoog la saari jiray laakiin alaabtan waa qurxin gaara macnaha ma lagula fahmay bulshada ma kusoo dhiiratay dhalinyaradii aroosanaysay ama xafiisyada furanaysay ama wax kastoo quruxa doonaysay munaasabadaha goonida macnaha ma kusoo dhiiradeenoo suuq ma leeyahay ها وليه هاي أو ضد ربنا بقى وحي فاهمين مهمة الديكوريشن كلية هاي
oo maanta qofkii aan wax weyn iibsan karin ama fadhi ama waxyaalo waaweyn oo kale iibsan karin intiisa hore u haystay iyo decoration ku qurxisanaya gurigiina waa guri aad u qurux badan dee noloshiisiina wax badan baa iska bedelaya marka dadkuna imka aad bay soo badanayaan laakiin adigu sanadaha soo socda waxa laga yaabaa inuu nolosheena qayb muhiima uu ka galo decorationku aad iyo aad shaqadan inta badan dadku waxay yidhahdaan wixii maaragtay guriga qurxintiisa iyo designada iyo waxa hablaha ku fiican adoo maxamedo markaad iibinaysay aad u kala doorayso ee hablihii arooska dhiganaya ama ku yimaadaan ama iyadiyo xaajigeediiba wada socdaba ee ka waran sideed ugu doorta wallaahi kolley markaad ganacsigii wixii dhex gashid wax badan baad baranaysaa iyo waayaha wax badan ku farabadaya marka shaqadii markaan markasta dhex galnay dee wixii isku munaasibka ahaa waxyaalihii is qaadanayay waxyaalo fara badan ayaan anagu isku kambaran marka qofka hadduu wax ka shaqaynayo shaqada uu ka shaqaynayo nooca jid ahaatee khibrad iyo expert buu ka noqdaa shaqadii aad iyo hadda waxaynu joognaa halkan alaabtan oo kale kuwan oo kale maxamed oo halkaa loogu talagalay kuwan oo kale iska waxa loogu talagalay in miis dushiisa la dhigo shamac iyo wax lagu rido marka waa iska iyaga laftigooda wax decoration oo iska alaab qurxin dhammaantood xafiisyada iyo guryaha su-aasha u dambaysa ku weydiinaya waxay tahay dhalinyarada jecel inay ganacsiyada bilaabaan amba ka fikiraya mar walba ganacsi weyn amba ganacsi maanta laga taajirayo amba ganacsi aan ka duwanayn ganacsiyadan jira ama kuwii hore u jirayba ka dhinac furaya maxay tahay taladaas siinaysa horta markaad ganacsi bilaabaysid muhiimkaad u bilaabaysid waxa weyn inaad nolol ka samaysid ma aha inaad tidaahdid qofkan baa ganacsigaa kusii jiray ganacsigaasaa guulaystay sidaasuu sameeyey qofkan ma garanaysid sababtu ganacsigiisu guulaystay wax fara badan oo markaad soo dhex gashid aad baranaysid baa jirta markaad wax bilaabaysid hebel baa waxaa ku dhex jira iyo heblaaya waxaa ku dhex jirta haws samaynay adigoo ideyada iyo fikraddii kugu jirtay hirgeli kuna dadaal in waxaan meel sare gaaro marka marnaba haws samaynin qofkaas baa waxaa sameeyey alaabtaas baa soconaysa waxaas baa soconaya mar kasta adigu caqligaaga iyo maskaxdaada kaasho wax fara badan oo aad adigu keligaa qaban kartid oonad copy aan best ahayn baa jira marka maskaxdaada aad uga shaqaysay su-aalaha aan maxamed idiin weydiinaynay intaasay ku egiin haatana waxaan kala baran doonaa American home decoration iyo waxyaalaha ugu socodka badan leh maxamed iibiyo ama qaabkan cusub ee dhalinyartu fikirkan cusub ay keeneen suuqa ah leh maxamed baan soo kala tusi doonaa waxyaalahan iibino waxa kamid ah kawarkan kabaha kamid ah oo kabar casri iyo sideenii hore ka duwan space hana aad buu yar yahay guryahan ma aragtay cusub ee space-kooda aad ku yar yahay oo kale ee looga faa'iideysanaya waxyaalaha kale iibino waxa kamid ah muraayadahan oo qofku meeshu doono isticmaali karo way wataan maxamed kabarka iyo muraayada kala gaarna u iibinaa qofkii wada qaadanayana wuu wada iibsan karaa waxa kamid ah geedahan oo kala kamid ah decoration oo kala kamid ah lighterkan oo kala kamid ah miisaskan oo kala kamid ah bahalada unsiga xal ku shida kala kamid ah miisaskan baa kamid ah bahaladana waa frameyadii guryaha iyo waxa lagu sharaxay mistifigan baa kamid ah bahalada flower lagu ridaa kamid ah ka alaabo fara badan oo decoration iyo way isugu jiraan baan iibinaa sidoo kale waxaan iibinaa galalkii iyo birkimooyinkii fadhiga loogu talagalay marooyinkana waa marooyinkii kuraasta cuntada iyo xaas loo isticmaalayay bahaladan faraawilka iyo xaas baa lagu ridaa iyagoo faraawil iyo xaro ku jiraana waa kuwan oo kale waa miisaskii fadhiga cuntada iyo xaal loogu talagalay bahalkan oo kale qofku nacnac waxyaalaha u baahan yahay oo kale uu iskaga ridanaya martida markuu soo dhaweynayo marka wuxuu u baahan yahay baa ku jira waxyaalahan baan iibinaa rogagan miisaskii waxyaalahaasaan iibinaa lighterka yaryare waxaan iibinaa hurdadii waxaa loogu talagalay intan oo kale waxaa loogu talagalay waa miiska fadhigoo kale in loo isticmaalo waa tusbax yar iyo cadar yar iyo baalkii lagu sii lagu shitay iyo taray kuwan oo kale waa muraayado yar oo iska decoration arag ahaan iyo waxa looma isticmaali karo laakiin iska adu decoration iyo waxyaalahaas un bay noqonayaan geedihii aan idiin sheegayna waa kuwan faraymidii iyo fara badan waa kuwan bahaladana waxaa loogu talagalay in unsiga lagu shito marka unsigii oo kale xaggan aad ku ridi waad ku daboolaysaa marka waa decoration plus unsiga inaad ku shidid kabarkana waa kabarkan idiin sheegayay marka waa kabarkii kabaha waa laba leeyar xaggana waa lagu ridi karaa xaggana waa lagu ridi karaa marka kabo fara badan buu kabar qaaday khaanad kastaana waa khaanadii kale waa la mid bay tahay marka waa
qofkii u baahan kabiis aad u waaweyn oo kale campus ka saaraya space-kii kabaha halkaas kan kale waa laga dhex saaray kan kale waa laga dhex saari karaa marka u baahatana waad xidhaysaa markaad u baahato waad xidhaysaa si gurigii aanu dad badan ama meel ciyaalkii oo kale aanu ka qaadan marka dadka ciyaalkii waxa haysta xagga dambe ka daloola gidaarka waa loogu dhijinaya marka qof wax soo dhacayo ciyaalka ku soo dhacayo Ma jiro. ma